محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنو نحرستي أبوان محمد عبد الرحمن حاج جامع لقويو ayaa gabay buu tiriyey xilligii inacigaal wuxuu yidhi qarniyada raggii jiray cidlay qulub la jifaan waxay la qarwayaan leylka dhexe qaadan kari waah culimmada qubtali waana way nagala quusteen dhaxay abwaanadu qoreen sheeko qaali ah quruuntii lumaysaa nasteexu kama qaataan sidan gabaygaa waxaan u soo qaatay xukuumaddeenna cadow uma nihin in loo nasteexiyo in tala la siiyaa in badan ayay nasiibsatay waxbase kagama baydhaan waxaan halkan saxaafadda sharafta loogu sheegayaa hantida u weyn ee ummadda reer somalilan ka dhaxaysa waa sharciga iyo dastuurka waa kalsimay xuquuqdooda hadday dal tahay iyo hadday dad tahay labadaba dhowritaankiisu wuxuu waajib ku yahay dhammaan muwaadiniinta reer somalilan mas-uul kasta oo xil haya ama madaxweyne ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo ama mas-uuliyad kaloo wasiir ha hayo xilkiisa waxaa xadida iyo awoodihiisa iyo dhowrsanaantiisa waxaa xadida waa sharci lama odhan sidaa doonto u soco tayga huguu xidhan yahi iyo hantidu sitaana uguma filla in uu maxaanku dhahaa calaamaha inuu wuxuu doono yeelo xalay waa wada maqlayseen wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ummadda u caddeeyey inaanu jirin heshiis saldhig milatariya oo dowladda imaaraadka carabta ay somalilan la gashay kombiletli inaanu jirin mar haddaanu kaasi jirin waxaa la yaaba waxa labada gole la hor keenayo ee uu madaxweynuhu isugu yaadhay mar haddaan heshiis saldhig milatariba wasiirka khaarijigu caddeeyey inaanay jirin wax saldhig milatariya oo lala galay dowladda imaaraadka sida ku cad qodobka 53 ee golaha sharci dejinta koowaad ee golaha wakiilada ayuunbaa xaq u leh marka heshiis caalami ah oo keenaya culays maaliyadeed oo aan miisaaniyadda ku soo aroorin ama u baahan in sharci cusub la siiyo loo dejiyo golahaasaa leh markay heshiiskaa caalamigaa eegaan mudare iyo munaafic wuxuu dalkan iyo dadkanu leeyahy golo kale oo la lihi ma jiro halka laga shakiyey wuxun bay noqotay haddii golaha wakiilada aynu ka shakino in uu maxaanku dhahaa heshiisba aanu jirno inaan horgeyn karaynin aan ku buuxsanno golaha guurta waxaan saaka halkan ummadda ugu caddaynayaa inaanu jirin qodob distoori ah oo ka dhaxaysiinaya labada gole ee baarlamaanka inay maxaanku dhahaa haddii heshiisba jiri lahaa golaha sharci koowaad baa yeelan lahaa arrinka maanta meesha lagu maydhaamaya waxa weeye labada golow waxaa noo oggolaataan inaannu heshiis soo galno
arrinkaasi meel laba dastuurka qaranka somalilan kagama yaallo xukuumaddu iyadaa u madax bannaan inay heshiisay soo gasho hase yeeshee waxa shardi ah inay golaha wakiilada hor keento mudaro iyo munaafic wuxuu leeyahy arrinka maanta la galay inan baa la yidhaha hebelo waanigii inanku weydiistay inantii doonanayd meeday in laysi yar laysaga yidhaaho wasiirka duulista hawada ama maxamuud xaashi ama ha noqdo inanka idmane qaranka aanaalay soo bixisaan ama ha noqoto madaxweynaha waxa weeye waxa halkan laga rabaa heshiis uu soo galay xaq buu leeyahay madaxweynuhu inuu keeno golaha sharci koowaadna hor keeno waa mide taa waa ku xaaraan oo meelna kagama jirto waxaan soo geli doono ama arrin aan soo geli doono iisii fasaxa meelna kagama taalo dastuurka madaxweynuhu wuxuu soo maray golaha wakiilada oo xubin ka ahaa maxamuud xaashi cabdi wuxuu ahaa xubin golaha wakiilada ah oo teeram dheer soo qaadatay way kala garanayaan shuruucda dalka way kala garanayaan qodobada dastuurka ma waxbaa u dhuuntay anigu waxaan qabaa diil raacow kale ayaa meesha ku jira barnaamijkii d b wel noocaasuu kaga baxay golaha wakiilada foolxumadeedana wuu kaga tegey markaa waxaa la dacawa halkay macal ku baratay ayay macluul ku baktidaa waddadii unbaa la soo raacay sharci la adeegsanayaa ma jiro waxa aan halkan ka caddaynayaa arrinka geopolitical locationka ay berberi maanta dhacdo ama halkay qaaraddan africa kaga taallo geedii waxa lagu yahay qaaradda africa irmaankeeda geed weygii loo mari lahaa ama albaabkii laga soo geli lahaana waa somalilan somalilan waxaa la ogaaday marinka baabilmandeb in laga ilaashanayo waxaa la ogaaday inta beriga fog iyo injiina ushanka laga ilaashanayo waxaa la ogaaday marinka horna saacadda la doono in laga ilaashanayo arrinku ma aha commercial activities ma aha oo keliya maxaanku dhahaa dano badan ayuu leeyahy waxa weeye sidii loo exploit garayn lahaa ama looga faa'iidaysan lahaa khayraadka africa oo weliba jihadaynu africa ka joogno east africa in laga galo somalilan geopoliticska locationka ay dhacdo ayaana u saamaxaya waxaa loogu marmarsoodaa kelmad caana halkaasi waa anres waxaa ka jira xasilooni darro waa kelmadaha reer galbeedku in laga wado carabtu dhawaa dhoobi geel la jooga laakiin arrinka waxaa dabada ka riixaya dowladda maraykanka ayaa ka riixaysa caddaymo cadcad baanu haynaa arrinkani waxaa ku jira innaga teenna waa qabsi haddaad ciidan aragto waa qabsi ciidanka imanaya haddaba berbera ee gogasha loo xaadhaya waanu idiin caddaynaynaa waxa weeye waa ciidan south africa u dhashay oo calooshiisha u shaqaystayaalah kuwii 1988 inagu garaacaya hargeysa oo shirkad uu leeyahy nin maraykani ay tababarayso qaybo ka midana iminka ay diyaar ku yihiin meelaan aad inooga fogeyn farta iyo qabsi farta la taago iyo qabsigu way isku xigaan xusbiyo ka dambeeyaan jirayn dhallinyaro naga dambaysaad tihiin oo ka tartami doona halkan oo dimuqraadiyad ka agsasarayn doona baarlamaan intuu laaluush iska qaato fartiisa miidaamiya tani waa tii adhaxda lagaga jabayy
arrin dhacaya maaha dhowr arrimoodna iskuma dhuuman karaan arrinka khudbadda ee sanadlaha ee madaxweynuhu waa qodob dastuuri oo gaar ah oo aan wax kale lagu soo dari karin wuxuu kaga hadlayaa laba arrin oo muhiima arrimaha nabadgelyada wixii sanadkii hore qabsoomay iyo waxaa u qorshaysan sanadka soo socdaa 2017 hadduu ka baxbaxo oo xaalado kala galo isagay u taallaa waa qodob dastuuri oo meel yaalla waa qodob aan wax kale lagu labi karin oo taas waa caddaan labada golana meelna kagama sanbalnaana kulmintoodu sida uu dhigayo qodobka 53 wuxuu jidaynayaa golaha wakiilada keliya intaa markay tahay waxa la galay sharci jebin waxa la galay constitutional coup wax la yidhaaho waa markaad intaad laabto sharciga wareegtooyinkaagu ay ka cuslaadaan arrinkii shidaalada iyo baadhistoodu heshiis caalamiya buu ahaa way galeen weli golaha may hor keenin boqolaal heshiisoo galeen ayaanay hor keenin ilaa 2012 5 February marka laga bilaabo dalku jiha aanay ummadda u wada socon buu socday oo hoggaankiisu u waday waa kala laab hoggaanka dalka iyo ummadda himiladeedu waxaan qabaa waa ummad la khiyaameeyey kaabayaasheedii dhaqaale ayaa global challenge-kii halkan dul yiilay ee ay isku haysteen quwadaha waaweynay ee la kala qabsanayey shidaalada reserve-ka ee Afrika iyo khayraadka dabiiciga ah ee halkan cidda lagula jiraa waa China waa Russia waa Iran iyo wixii la mid ah garoonkeenna waxaa kaloo loo isticmaalayaa waa operative airport waa garoon lagaga duulayo dal aynu walaalnahay oo cilaaqaad iyo taariikh camiiq inaga dhexeeyo oo aan waxba aan inaga kasban xuutigooda iyo muutigooda iyo waxooda kale inaga waxaanu leenahay we call Yemen for peace Yemen waxaanu ugu yeedhaynaa in ay gudaheeda ka heshiiso oo ay dal xasiloon noqoto dastuurka qaranka Somalilandna wuxuu dhigayaa Somaliland in siyaasadeedu dhexdhexaad tahay waxaan hadalkaa waan dheereeyey waxaan leeyahay maanta dalka waxaa la geliyey dagaal waddanka Ethiopia waxa u qorshaysan waddamada Carbeed iyo cidda la socota in laga rido xasilooni darro ay jaamacatul carab ka dambayso oo saldhigga Eritrea ay ka meel dhigteen Ethiopia markii DP World heshiiskeeda ay ogolaanaysay in la soo laabo kaa meelo badan laga duqeeyo annagii Ethiopia waa partnerskaygi iyagii Djibouti indiba ku timaadana ma ogolin tallaabo ay xukuumadda Somaliland qaadayna inay waxyaalo intaa le keento wax weeye waa ayaan darro weyn waa aqoon darro waxaan qabaa regime Somaliland soo mara ama Soomaaliya soo mara waa regimekii ugu aqoonta daraa ee ina qabsadaa xukuumadda Siilaayo iyo maamulkeedu hadday garanayso conflicting region bay nagu dhex turtay khilaafkii bariga dhexe ayay nagu dhex turtay maanta gantaalka ay xuntiyuutu ay soo ridaan dee Sacuudi Arabiya ayuu maraakiib ku dhaawacay ma berbero 20 tallaabo u jirta ayuu ku filan yahay maxamuud xaashina wuxuu kor ugu qaylinayay sunniyiintaanu raacsanay goormaynu dagaal diineed gallay oo aynu la kala safarnay sunni iyo shiicays haysta waxaanu halkaa uga jeednaa haddii iyadoo xusbiga waddani
hore uga go'aan qaatay waxa isweydiin la muxuu uga go'aan qaatay sharciyad buu ku saleeyey dastuur buu ku saleeyey annagoo xildhibaanadiisiinayna waxaanu si cad ummadda uga digaynaa arrintaasi inay tahay qabsi inay ka diyaar garoobaan inaanay oggolaanin haddii shacbigu uu kici waayana waxa weeye xildhibaanadu taangiyaal ma wataan waanu idin iftiiminay 6 gobol ee somalilan waxa aan ku wargelinayaa taageerayaasha waddani inay maalinta bishu tahay 12 berita ka gilgishaan kuwa caasimadda joogaana ay u soo diyaargaroobaan